الرحيم إلهي بقى مهدله marka hore waxaan halkan mahadnaq aan uga dirayaa dadkii soo abaabulay soo dhaweynta qiimaha leh ee loo sameeyay waftigan uu hogaaminayo musharaxa iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay aad iyo aad baa mahadsantiin dadkii ka shaqeeyay habeen iyo maalin u taagnaa dumarkii aad ka u shaqeeyay waxaan wada dumarkii inay ka shaqo badnaayeen ragga horta hadalkii waa la dhameeyay anigu degmadan laasa dacawo saaxiibkay aan gaariga wada saarnayn xinif ayaa idhooniyow annaga lahayn magacaas dacwadaas maxaa adeer aad ula baxdeen idinku ula baxdeen waxaan leeyahay anigu magaca in laga bedelo maaha horta waxaad ogaataan de Soomaalida inuu baa inta badan dacwada u haysato xune caalamka dacwadu waxa weeyaan khayr bay hogaamisaa dadka inta badan waxay yiraahdaan hadda dacwo aragtid aroorta hore waa khayr wax fiican bay ku soo wada ayaa la yiraahdaa marka hadday ku caana maashay la saddaco daadeer u daayay waan leeyahay khayrka halkaas u jira wal malanayaa laakiin waa deegaan qurux badan la saddaco iyo deegaanada ku xeeran waxaan malaya deegaano dhaymoole iyo taaga iyo bixin doole iyo mijacaseeye iyo bureeqe iyo intaas oo dhan waa deegaanada kale maartay hoos yimaada degmada dad wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan ayaa halkan degan meelii aan taageerada ugu badan ka helay anigu ayay ahayd runtii muusana waxaan leeyahay waxaad moodaa niyo kulmiyuhu inuu ka dardar badan yahay kulmiyihii horeeto oo ka dardar badan yahay oo qoladii hore maartay de kulmiye way yara saxdan malmalayaan in boorka laga tumo ayay u baahantii qolooyinkiina cusbi Muuse Biixi Cabdi runtii de aniga hore u taageeray oo aniga wada taageernay dalkana marka dad adeegaysid waxa u dan ah ayuun baa inta badan adeegtid yaa u danaha dalkan waxaan arkay iyadoo ay qaar lahaayeen Muuse ku taageera laba shay anu laakiin uma arka labada shay in lagu taageero wax ka weyn ayaa lagu taageeraya waxaad ku taageertaa Muuse isagoo nin dalka joogay oo marka dad badan oo qurbaha ka yimid buu ka didinaya qofka sidaa yiraahdaa adeer ha oran sababta anaga ka nimid la farkayga qurbihi dalkana waa maartay la farkayga on leenahay marka ha oranina horta taasi oo maaha in criteria soo kale lagu siiyo laakiin waa inaad tiraahdaan Muuse waa hogaamiye dalku u baahan yahay maanta xaaladan lagu jiro dadka tartamaya ninka ugu mudan buu yahay inaad tiraahdid baa la idinka doonaya taasa labada ka haboon bay la taanay waa taana waan ku dooran anagu kubaanaan dooran in kastoo aad eegaysid qofku markuu decision qaadanayo waxa weeyaan decision adag buu qaadanaya anigu waxyaalahan ku qiimeeyo waxa kamid ah oo aniga laftirkeyga aan isku halka ka hoos galo markii uu Muuse kay halganka soo galayay dhowr 80kii doortu uu kari karayay inuu Mareykan iska joogo iska raaxaysto sida rag qaar lamid isaga ay sameeyeen oo go'aan adag buu qaato xilli dalkiisu u baahnaa ayuu u yimid oo isaga oo kari karaya inuu dalkaasi Mareykanka iyo nolosha fiican ku noolaado halka horta waa mujaahid weyn buu geeyay horta qofka laga qaado maaha anigu qodayda halka iska soo yargeliyo waxaan ilaadaa anigu qodayda anigu shaqo badan haysta halkan imidooda la fikirku mujaahid yar baan marka halka aniguba ilaa anigu meel raaxa ma ka imid waa joogi karay ya sida ragga qaar Muuse waxay u baahanay inteena oo dhali dalku sida uu Cabdicasiis Maxamed Soomaali saaxiibkay oo isag fadhiyay uu cadeeyay ciyaarta team weeyaan inkastoo shakhsiyaadku jiro haddana dadku waxay eegayaan kubadda cid xulanayo qofka kabtanka ka ah kabtanka kooxda ee hogaaminaya imka kooxda kulmiyeed oo Muuse Biixi Cabdi cid uu safanayo uu leeyahay hebel baa difaac iga ciyaaraya hebel nabciga ciyaaraya maartay weerarka ay dadku eegayaan dadka kalena xisbiyada kalena saasi leeg baa leegaya marka leenka la soo taxo marka hadhow marka ciyaartu finalku ay imanayso doorta markaas cid cadcad la kala ogaanay imikana way sii muuqataayo waxaad moodaa in ay dardar wanaagsani ay jirto
موسى بدن waxa lagu eedeeyaa de horta dad bini aadam qof kasto hogaamiye ama cid kasto meel qabsata dhaliil ma weydo oo oramayno wada dhaliil ma laha anigu de mucaaridan ahaan jiray xisbiga kulmiye waan dhaliili jiray de oramaayo kulmiye waa dhaliil ma laha ma oranayo laakiin waxaan eegay wixii meesha yaalay ya ayaan saaxada saaw eega ma saare walle malaha kan hadii la yara hagaajiyo oo muusana laftirkiisa de adeer deg steering muu hayn markii hore laftirkiisa taada yaan laftirkeeda loo eegin oo isagu wuxuu oranaya wardaaniga xillimeeydan dhiiban inkastoo xisbigaygu hayay wixii xisbigaygu hayana ana ka masuula oo ana qabanaya ayuu de oranaya markuu uu isagu de hadlayo oo oran maayo xisbigaygu waa ceeb tasliim laakiin wuxuu leeyahay dhaliil waa leenahay waa saxayna waa aragnimo leenahay dad cusubna waa keenna hogaan cusubna waa dhisaynaa buu leeyahay marka dadka saaxadda Soomaaliland wala Soomaaliga waxaan leeyahay si wanaagsan ha loo tartamo ayadu ma wanaagsana aflagaadadu ma wanaagsana dadkuna way xusuus dheeriin oo qofka ayada xun ma jecla qofka afka xun ma jecla qofka wanaagsan ee ceebka saliimka ee dadka si wanaagsan oo loo tartamay afka gaaban ee ku tartama haduu eedaynayna si wanaagsan oo cilmiyeysan oo aan shakhsi weer ahayn ayaa in loo eedeeyo ayaa de loo tartamaya wanaagsan aad baan u soo dhaweynaya muuse waxa leeyahay deegaanada deegaanadaadii waa deegaanada hadda imka de support-ka aad arkaysid aad ku haysatid aad iyo aadna waan idinku hambalyeynaya sida wanaagsan ee aad ka yeesheen muuse iyo waftigiisa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh